baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta si aqlabiyad leh ku meelmariyay xukuumadda cusub ee uu dhawaan soo dhisay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam. ansixinta golaha xukuumadda ayaa timid kadib markii uu madaxweynuhu warqad uu ku codsanayay in la ansixiyo golaha xukuumadda uu u soo diray guddoonka golaha wakiilada Jubbaland. habdhowraha baarlamaanka Jubbaland ayaa golaha wakiilada ka hor akhriyay codsiga kaga yimid madaxweynaha. warqad HMA/DA/SA/034/2016 taariikhdu waa Juun 9keedii 2016 ku guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ujeedo codsi ansixin xubnaha golaha fulinta. markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland cutubkiisa afraad qodobka 72 faqradda 3 ee ku aadan awoodda madaxweynaha ee magacaabidda xubnaha golaha fulinta. markuu arkay baahida loo qabo in si degdeg ah loo dhiso golaha fulinta ee dowlad goboleedka Jubbaland. markuu arkay xubnaha golaha fulinta oo dhameystiran isla markaana ah mid ku salaysan isu dheelitirnaanta saami qaybsiga ee bulshooyinka Jubbaland. markuu magacaabay xubnaha golaha fulinta ee dhameystiran isla markaana ah mid ku salaysan isu dheelitirnaanta saami qaybsiga ee bulshooyinka Jubbaland. markuu arkay baahida loo qabo in si degdeg ah u shaqo galaan xubnaha golaha fulinta ee dowlad goboleedka Jubbaland ee dhawaan la magacaabay. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu ka codsanayaa golaha sharci dejinta ee Jubbaland inay ansixiyaan xubnaha golaha fulinta ee uu dhawaan soo magacaabay madaxweynuhu. tixraac warqad HMA/DA/SA/2016 taariikhda 15 May 2016 ujeedo magacaabid madaxweyne ku-xigeenyaal. markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland cutubkiisa afraad qodobka 72 faqradda 3 ee ku aadan awoodda madaxweynaha ee magacaabidda xubnaha golaha fulinta Jubbaland. markuu arkay baahida loo qabo in si degdeg ah loo dhiso golaha fulinta ee dowlad goboleedka Jubbaland. markuu la tashaday guddoonka iyo xubnaha golaha sharci dejinta ee dowlad goboleedka Jubbaland. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxaana fadhiga xukuumadda lagu ansixiyay soo xaadiray 58 xildhibaan. 53 xildhibaan ayaa u codeysay in la ansixiyo xukuumadda, waxaana diiday 2 ka mid ah xildhibaanada, halka 3 xildhibaanna ay ka aamuseen. ugu dambeyn, gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay ansixinta xukuumadda. xildhibaanada sharafta leh aad iyo aad baad u mahadsantihiin. kooramkan wuxuu ahaa 58 53 waxay u codeysay haa maya, waxaa diiday 2, 3na waa ka aamustay. sidaa daraaddeed dowladdii madaxweynaha uu keenay waa ansax. waa mahadsantihiin. Zakariya Cabdiqaadir Karazai, TV-ga caalamiga bulsho magaalada Kismaayo.